kulan waxaan wanaagsan qaarta waddan nagala socota email walba joogtaan iyo soo walba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada xogii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada wararkeena ugu doorroona waxaa kamid ah ciidamo gadoodsan oo xidhay wadooyinka gabi ahaanba soo gala magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyadoo maalmihii ugu dambeeyayba ay xiisad xoogan halkaasi ka taagneyd iyo waxa ka dambeeya ciidamadani ayaan idin soo gudbin doonaa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay jawaab degdeg ah ka bixisay hadal ka soo baxay afayeenka ururka argagixisada ee Shabaab iyadoo dagaal xoogan ay maalmihii ugu dambeeyayba ka socdeen gobolka Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Mudug oo halkaasi lagu ugaarsanayay isla markaana jab weyn loogu geystay kooxaha argagixisada ee Shabaab iyo Daacish waxayna u muuqataa hadallada ka soo baxaya ururka argagixisada ee Shabaab in jab weyn loogu geystay dagaaladii ugu dambeeyay ee ciidamada dowladda iyo sidoo kale kacdoonka shacab ee ka kacay gobolka Hiiraan iyo gobolka Mudug dhinaca kale waxaynu eegi doonaa dagaaladii ugu dambeeyay iyo sidoo kale xogihii ugu dambeeyay ee gobolka Hiiraan iyo kacdoonka shacab iyo goobihii ay ku dambeeyeen iyo goobaha ay wax ka socdaan ayaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa dhinaca kale mid kamida dableydii maalmihii ugu dambeeyay ee dhibaatada ba'an ku hayay magaalada Muqdisho isla markaana dil u geystay Allah u naxariistay marxuumad Caasho Daahir Xasan oo u sii jeeday hool oo arooskeedu ka dhacayay oo lagu qabtay magaalada Muqdisho iyo sir la yaab leh oo uu ka shifay iyo saraakiil uu sheegay inay isla shaqeynayeen ayaan halkan idinku la wadaagi doonaa dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ku sugan wadanka UK kana qayb galaya aaska boqorada dalka Ingiriiska oo maalmo ka hor ku geeriyootay wadankaasi ayaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa kulamo uu la qaadan doono mas'uuliyiinta ugu sareysa wadankaasi iyo waxa looga wada hadli doono ayaan halkan idinku la wadaagi doonaa amniga magaalada Muqdisho oo laga dayrinayo ayaan sidoo kale warkeena ku eegaynaa waxaan dhinaca kale eegi doonaa tabashooyinka iyo isqaqabsiga siyaasadeed ee ka taagan magaalada Muqdisho maxay tahay wasiir Khadiija ereyga ay aad u dhibsatay ee baraha bulshada qabsaday isla markaana loo bedelay arrin qabiileed warkeena ayaan ku faahfaahin doonaa waxaan gabi ahaanba warkeena aad kaga bogan doontaan xogihii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya balse waxaan si qadarin iyo xushmad leeyahay ka codsanaynaa haddii uu ku soo gaaro muuqaalka la isaaro aragtidaada noogu reeb qaybta commentiga oo nagu soo biir mahadsanidin aan ku bilownay ciidamo gadoodsan ayaa maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaq xoogan ka waday agagaarka magaalada Gaalkacyo ee xarunta maamulka Mudug iyadoo halkaasi la sheegay inay gabi ahaanba ciidamadaasi ay xidheen wadooyinka gabi ahaanba soo gala magaalada Gaalkacyo waxayna ciidamadani xidheen wadada weyn ee laamiga ee soo aada dhinaca magaalada Muqdisho iyo wadada u baxda dhinaca Hobyo iyadoo gabi ahaanba wadooyinkaasi waaweyn ee meynka ee gaadiidka iyo dadka faraha badan ee socdaalka gobolada u kala gala ay maraan ay gabi ahaanba xidhan yihiin gaadiid aad u tiro badan iyo dad aad u tiro badan oo safaraya halkaasi ku xaniban waxaana la sheegay in dadkaasi ama ciidankaasi ay yihiin ciidan aad u hubaysan oo horey loo soo diyaariyay isla markaana ka gadoodsan xaaladda maamulka iyo sidoo kale maamul goboleedka ay ka tirsan tahay magaalada Gaalkacyo oo si weyn ay uga biyadiideen habdhaqanka iyo sidoo kale tabashooyin waaweyn oo ay ka qabeen maamulkaasi ayaana sabab u ah la yiri waxa dhinaca kale soo baxaya odayaal iyagu isabaabulahayo doonahaya inay ergo ula tagaan ciidankaasi si loo furo wadooyinka xaniban ee dhowrkii maalin ee ugu dambeeyayba cabsida weyn laga qabay isla markaana istaagay isu socodka gobolada iyo sidoo kale degmooyinka kale ee gobolka Mudug dhinaca kale waxgaradka iyo aqoonyahanka ayaa xaaladda ka dayriyay magaalada Gaalkacyo waxayna sheegeen in magaalada Gaalkacyo ay xanibaad saaran tahay isla markaana wax gaadiida uusan soo gali karin iyadoo ciidamadaasi ay sheegeen inaysan hal gaari u ogolayn oo u gudba magaalada Gaalkacyo ama galaba gudaha magaalada Gaalkacyo ururka argagixisada ee Shabaab ayaa xalay war ka soo saaray kacdoonka shacab ee gobolka Hiiraan iyo dagaalka dowladda federaalku ay cilaamisay lagula jiro kooxaha argagixisada ee Shabaab waxaana halkaasi jawaab kulul ka bixiyay taliyaha ciidanka dhulka taliya Taxliil Beexi wuxuuna ku sheegay in afayeenka ururka argagixisada ee Shabaab warka uu soo saaray isla markaana uu ugu hanjabay shacabka kacdoonka shacabka wada iyo dowladda federaalka dagaalka ay cilaamisay ee lagula jiro kooxahooda in ay sii wadi doonaan isla markaana ay u muuqato in afayeenka ururka argagixisada ee Shabaab Sheekh Cali Dheere lagu jabiyay ciidamadiisa dagaaladii ugu dambeeyay ciidamada militariga dalka Soomaaliya iyo sidoo kale kacdoonka shacab iyo macawisleyda oo iska garoob dagaalamaya wuxuuna sheegay in dadaaladaasi la sii wadi doono Sheekh Cali Dheere ayaa khudbadiisa xalay wuxuu ku sheegay uguna hanjabay shacabka Soomaaliyeed ee kacdoonka wada isla markaana ku sheegay in ay dagaal xoogan la gali doonaan ay qudha ka jari doonaan ay ka shalaayi doonaan daba dhilifka ay daba socdaan oo uu ka wado micnaha taageerida ciidamada militariga ee dalka Soomaaliya ay taageerayaan wuxuuna sheegay in ciidamadooda heegan la geliyay dhibaato xoogan ay la kulmi doonaan cid waliba oo taageerta ciidamada dawladda iyo sidoo kale ciidamada AMISOM ee ku jira gudaha dalka Soomaaliya
dhinaca kale taliya biixi ayaa si degdega uga jawaabay warkaasi wuxuuna sheegay inuu u muuqdo hadalkaasi mid calaaqal ah isla markaana lagu jabiyay dagaaladii ugu dambeeyay wuxuuna sheegay in ciidamadooda iyo sidoo kale kacdoonka shacabka la sii doono oo shacabka Soomaaliyeed ay u adkeysan waayeen dhibaatada iyo sidoo kale rafaadka iyo hagardaamada 15 sano ay ku hayeen gudaha dalka Soomaaliya taliya taxliil ayaa sheegay in lagu jabiyay gabi ahaanba la laayeen saraakiishii ugu sareysay ururka argagixisada oo qaabilsanad gobolka Hiiraan iyo Mudug iyo sidoo kale Shabeellada Hoose wuxuuna sheegay ciidamadu inay wali baacsanayaan ayna sii wadayaan dadaalada ay kula jiraan xoreynta iyo sidoo kale baabiinta ururada argagixisada dhibaatada xoogan ku haya gudaha dalka Soomaaliya dowladda federaalka ayaa maalmo ka hor waxay shaacisay in dagaal xoogan lala gali doono kooxaha argagixisada nabaddiinta iyo cid walba oo ka soo horjeeda xasiloonida nabadgelyada iyo dowladnimada Soomaaliyeed إلا لا دقالمي دونو قعن برعنا لقو قبان دونو يدو رئيس الوزراء هدالك سومالي حمزة عبدي بر يا مدحويني حسن الشيخ محمود لبادو با اسكو راعين دقالك للقل يو ururka argagixisada ee shabaab iyo soo cirib jirista dagaalkan ay sii daba dheeraaday ee 15 sano ugu dambeeyay loo tagleeyahay iyadoo ciidamo aad u tiro badan oo loo ogsoon yahay inay ka midowga Afrika ka tirsan inay ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya ciidamada midowga Afrika ciidamada Soomaaliyeed oo 10 sano ugu dambeeyay loo soo doobarayay gudaha dalka Soomaaliya ayaa natiijo noocan oo kale aan ka keenin sanadihii ugu dambeeyay iyadoo hadda ay u muuqato inay ka faa'iideysanayaan kacdoonka shacab ee taageeraya ciidamada militariga ee dalka Soomaaliya waana mid keentay in shabaab oo warbaahinta aan la hadli jirin isla markaana afayeenka ururkaasi aan in dhowba lagu arag baraha bulshada waxa ay too war la soo istaagay TV iyo radio iyaga afkooda ku hadla isla markaana ugu hanjabayo kacdoonka shacab iyo sidoo kale dadaalada ay wadaan ciidamada militariga ee dalka Soomaaliya taasi oo uu doonayo inuu ku cabsi geliyo isla markaana uu ku khalkhalgeliyo shacabka iyo ciidamada hormarada weyn ka sameeyay dagaaladii ugu dambeeyay ay la galeen kooxaha argagixisada iyo ciidamadiisa jabka weyn ugu geystay gobolka Hiiraan iyo gobolada Shabeellada Hoose shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyay markii lagu jabiyay dagaaladii lala galay ayaa waxay bilaabeen gubaad ay dadka rayidkaasi toos u gumaadahayaan iyagoo habeena ka hor laayay nabadoono u socday goob ay ciidamada shabaab ku haysteen shacab Soomaaliyeed oo si khaldan ay u aftuubteen isla markaana doonayeen nabadoonadaasi inay ka ergeeyaan shacabkaasi ay gacanta ku hayaan waxaana gabi ahaanba cagta ay mariyeen oo ay miina u dhigeen nabadoonadii ugu socday arrimaha xalka nabadgelyada iyo shacabka ay ku haystaan saldhigyada waaweyn ee ku yaala magaalada beledweyne duleedkeeda waxay dhinaca kale taxasuuqeen caruur iyo haween isla markaana aysan xabad ka reebin waana ficilada ugu dambeeyay ee ururada argagixisada ay sameynayaan iyadoo gabi ahaanba looga adkaaday dagaaladii foolka ahaa ee ciidamada militariga ee dalka Soomaaliya iyo macawisleyda oo isku dhinaca ay la galeen ciidamada ururka shabaab waxaana gabi ahaanba intiisa badan laga sifeeyay deegaanada gobolka Hiiraan iyadoo ay u muuqato falalkii ugu dambeeyay ee sidoo kale hanjabaadihii ugu dambeeyay ay doonayaan inay ku khalkhalgeliyaan horumarada ciidamada militariga iyo sidoo kale shacabka ay wadaan waana mid ujeedkoodu uu yahay inay ku cabsi geliyaan shacabka kacdoonka wada isla markaana ay doonayaan in gobolada kaleetana uusan ka dhicin kacdoon noocan oo kaleeta afayeenka ayaa intaasi ku sii daray in shacabka kacdoonka wada ay dawladdu hubkan siisay isla markaana ay dagaal kula hor imaadeen mujaahidiinta iyo ciidamadooda waa sida uu hadalka u dhigay dawladda ayaana sheegtay inay shacabka taageerayso isla markaana ay garab taagan tahay hiliyo hooba ayna iska dhaceeyaan cadowga ku habsaday ee horumar diidka iyo nabad diidka ah ee dhibaatada ba'an ku ayay 12 sano ugu dambeeyay dhinaca kale magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeysay xaalad amni darro ayaa ka taagneed iyadoo dabley aan haybto la garanaynin ay dhac iyo kufsi dilal bareed ah ay u geysanayeen shacabka magaalada Muqdisho hase ahaatee ciidamada booliska iyo sidoo kale hay'adda sirdoonka qaranka NISA oo dadaal dheer ku bixiyay sidii loo baadigoobi lahaa kooxahaasi loo soo qaban lahaana ayaa maanta la sheegay inay ku guuleysteen qayb ka mid ah dableydaasi isla markaana lagu eedeynaya qaar ka mid ah ragga maanta la soo qabtay inay dileen Allah u naxariistay marxuumad Caasho Daahir Xasan inay ka dambeeyeen dilkeeda taasi oo gabadh aroosada una sii jeeday hoolkii uu arooskeeda ka dhacayay isla markaana toogasho bareera loogu geystay inta u dhaxaysa gurigeeda iyo sidoo kale hoolka ay arooskeeda uu ka dhacayay
maalmihii ugu dambeysayba magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaysay falal amni darro iyadoo toogashooyin badheedha dhac dil kufsi iyo sidoo kaleeto xaalado aad u adag ay ka taagnayd magaaladaasi waxaana arrintaasi lagu sheegay inay geysanahayeen kooxo aan haybtooda la garanaynin ayna boolisku ku daba jireen kooxahaasi waxaana lasoo qabtay qaybo ka mid a iyadoo qaybahaasina ay xogo muhiima bixiyeen oo ku aadan cidda la shaqaynaysay waxaana la sheegay in saraakiil sarsare ay ku log leeyihiin ayna la shaqayn leeyihiin islamarkaana ay ka dambeeyaan falalka amni darre ee ka dhacayay magaalada muqdisho dhinaca kaleeto waxa isa soo taraysay in maalmihii ugu dambeysayba ay jireen ciidamo gadoodsan oo iyagana diriiska u siibtay islamarkaana galay magaalada muqdisho taasi oo tabashooyin waaweyn ay ka qabeen dhinaca dowladda federaalka iyo mishaar la-aanna ay ka cabanahayeen waana qayb ayay ka ahaan karaan baa la leeyahay amni darrada magaalada muqdisho dhinaca kale waxay cadho weyn ka dhalatay khudbadii sheekh maxamed cabdi umar ugu nusteexaynayay wasiir ka mida wasiirada dalka soomaaliya wasiir khadiijo iyadoo arrintaasina u bedeshay arrimo qabiil islamarkaana ay baraha bulshada qabsatay waxaana ka soo jawaabay dad aad u tiro badan oo intooda badan ay yihiin haween iyo sidoo kaleeto ragba waxayna arrintaasi ku tilmaameen in sheekhu uu toos u taageedgareeyey ama toos uu u abbaaray qabiilkooda iyagoo ku difaacaya arrimo qabiil sheekhuna wuxuu sheegay in dharkana foolxun ee ay xidhatay wasiiradda iyadoo aan ahayn caruur islamarkaana ah naag habara oo weyn ay fariin adag u dirayso shacabka soomaaliyeed ayna dhubinayso hablaha soomaaliyeed ay ka dhuminayso diintooda akhlaaqdooda iyo adaabtooda wanaagsan sheekh maxamed cabdi cumar ayaa sheegay in labiskan ay xidhatay wasiir khadiijo uu yahay mid fariin u ah shacabka soomaaliyeed laguna dhuminahayo akhlaaqda hablaha soomaaliyeed islamarkaana loo baahan yahay inay dowladda federaalku ay ilaaliso akhlaaqda shacabka iyo jiilka soo kacaya isagoo sheegay in maamadani ama islaantani ay tahay islaam weyn oo habara islamarkaana aysan ku habbooneyn akhlaaq darradani maadaama ay tahay wasiir ayna u tahay shacabka soomaaliyeed labiska noocani ayuu ku tilmaamay sheekhu inuu yahay sarwaalkii iyo shaatigii lagu seexanaya sariirta islamarkaana ay la soo shaqa tagtay wasiir khadiijo oo ay la imaatay goobaha babliga iyadoo la arkayay garoonka aadan cadde inay dhex wareegayso ayna ku dhex wareegayso sarwaal aad ugu dhegan shacabka soomaaliyeed ayaa si weyn ula fajacay kadib markii ay arkeen muuqaalka baraha bulshada lagu faafiyey ee wasiir khadiijo oo sarwaalkani aadka ugu dhegan xidhan iyadoo siyaabo kala duwana loo fasishay inta badanna shacabka soomaaliyeed ay fariin adag u direen dowladda federaalka oo laga codsaday in xilka laga qaado wasiir khadiijo islamarkaana aan laga ogolaanin dhuminta iyo dhaqanka diinta islaamka iyo sidoo kaleeto hablaha soomaaliyeed oo markaasi kaga dayan kara maadaama iyadoo ay tahay shakhsi aad loo yaqaano ahna wasiir ka tirsan wasiirada dowladda federaalka ee soomaaliya dhinaca dowladda federaalka iyo madaxda ugu sarreysa wax jawaaba kama soo bixin balse ahaatee arrimo qabiil ayaa qabsaday baraha bulshada iyo odayaasha dhaqanka iyo sidoo kaleeto mas-uuliyiin sarsare oo lahayba wasiir khadiijo ay si weyn u difaaceen ayna sheegeen inay jiraan hablo kaleeto oo soomaaliyeed islamarkaana ah qabiilka daarood oo qaawan islamarkaana xidha sarwaal hase ahaatee sheekh maxamed cabdi umar ayaan wax qabiila sheegin isagoo si toosa ugu sheegay uguna nasteexeeyey wasiir khadiija dharkani ay xidhan tahay inuusan ahayn dharkii ku habboonaa islamarkaana ay fariin adag u dirayso ayna tahay mid ay doonayso inay ku marin habaabiso hablaha soomaaliyeed iyo sidoo kaleeto jiilka soomaaliyeed ee soo kacaya ugu dambayna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyey baa ku sugnaa waddanka maraykanka ayaa shalayta gaadhay waddanka u k halkaasi oo la sheegay madaxweynuhu inuu safarkiisa ka qaybgeli doono aaska qaran ee loo samaynahayo boqorada dalka ingiriiska oo maalmo ka hor ku geeriyootay waddankaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay casuumaadda iyo sidoo kaleeto ka qaybgalka xafladda dhimashada boqorada dalka u k inuu la kulmi doono mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka u k halkaasi oo uu kala hadli doono xoojinta xidhiirka waddanka u k iyo dalka soomaaliya iyo sidoo kaleeto mahadcelin deeqaha ay bixisa u k iyo taageeridda ay soomaaliya taageerto waxaa dhinaca kaleeto la sheegay inuu kala hadli doono la dagaalanka ururka argagixisada ee shabaab iyo sidii la iskaga kaashan lahaa kooxaha daashaday waddanka soomaaliya ee argagixisada ee ka dagaalama gudaha dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay dhammaystirka iyo sidoo kaleeto gebagabada kulamada mas-uuliyiinta dalka u k inuu u ambabixi doono waddan kale isagoo uu noqon doono safarkiisii 11aad oo waddanka dibadiisa uga baxo daawadayaal intaasi ayaan kusoo afeeraynaa war waxaan daliyo dibadba idinka haynay intaan warkan warka xiga ka gaadhaynana waxaan idinka tegaynaa amaana